ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناس صاحب الصورة وهذا مرة قليل برامج كنا خيورت دوينا مقالة برعو هل كذا وان صور بورد تي في أنا ونحن حمد عبد الله دوينا مقالة برعو وانت ترى سؤال كوس أبسن قرن كل قاعد يقول تي قبل قرمين تعلم هذا المدني جا بالمحط كحسن تونتا المدني المدني جا كو أبور من معلومي عتكا بالحسوس ترى الشعب كمقالة برعو كهاستان المدني المدني جا ما دامش كبحين أنا وحس دونا سيدي أسلم يين كرايا مدين دونا الصور دوّاده أنا دعوة أنا ما سنتي حاجة وندوه ولا المقعي ومريم هذا السلام مريم عبد ما سنتي بورد تي في كوس دويني ولا سؤال ما كرك وديني ورنا صح SSP ما عدمدي مدني قاعد دولته إنه قرمسي كبولسيتي ما دامش كبحين حسوسنا عاد كاستادو والله حسوس آدي آدم مهمة ما دام معلومة أذاك نجرب استاجن وأنا أدوق بحنا وإحنا بوحية بوس كودي بس ما تنعد بنقول فرحسن هاي ما دام كان من نقطة عيدة كقرن كان ماشي لقى صارين يسحوك سنيان وجمعة يسقب سنيان آدي آد بنقول فرحسن هاي ولنا وحنا هالكودي بوس كسي هذا جنقل دونا بن إن شاء الله رجينا يا waxaad tilmaansan hayaa maasadaas maasadaas maasa ku saabsan maxay toolay qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland marxaladii hore soo maray marxaladu maanta taagan yahay taas iyada jirto haddana iyada jiraan wali dadkii Soomaaliland hagardaamada adag u geystay iyo maalmihii adkaa dadka Soomaaliland ay ka soo kabatay hadeer iyagoo wali sidii u daba jooga ama wali raadkeeda gurayo oo ka xun guusheeda iyo horumarka ay gaadhay marka maasadani waxay oranaysaa badanka maasadan waxay la hadlaysaa dadka Soomaaliland indhaha ku taagaya al'aana ka xun calaashan guusha ay gaadhay horumarkeeda maasada waxay leedahay ruuxadu dulmana yahay dambaabiro nafeed qabo dakharana ku yaaliin dadna uu ilgalay gacan uu ka diriraa afkana uu ka doodaa dacwadii ka sheegtaa misna wuxuu ku diran yahay dadaal badan ku bixiyaa dulucdiisa noloshiisa danihiisa gaarka ah waxba yaana daadagina waxaan uga dan leeyahay saban haddaan degnaan jiray duurjoog ahaan jiray layga saaray dadabtii iduleeyay nacabkay nabadigula dirireen diyaaradaha waaweyn iyo hubka laygu daba jaray nina ii dirgaxanayn dumarkii carruuraha dadweynaha dhammaantood midna laga danqaabayn ruux loo danaynayn dulmiguna ma waare kafalu u daran yahay maantaba ka doogsaday ka dawoobay nabarkii xasuustaani daynayno doqonigu wadwadaya haddii aan danaysto dawlad wacan samaysto darbigii ka hoos baxay daalimkii iskaga tegey naftaydana dareenkiiyo ka ilaalishay doogtii dibnihii wanaag faray walaalnimada door biday maxaa weli ii daba dhigay ku kastoo la doortaa muxuu ii damqaayaa afka iigu duraya darajadan tallaabsado muxuu uga duryayaa dood uga hor keena si kastaad u doodido dabu kiciso abidkaa anii ima durayside ha igu daalin digarogo ama igu dandaabnow weligaa ii daba joog dayacdanaha kuu yaal maxaad igaga dagaysaa aniguna dadaalkii darajaan ku gaadho dhaqanku ma mashquule danahaaga meele ama igu dandaabnow weligaa ii daba joog dayacdanaha kuu yaal maxaad igaga dagaysaa kula doodi maayo isku darajo maynihiina waynu kala dambaynaa anna waan degdegayaa dayaxaan higsanayaa danahaygu waa gaar dacogaysi aan gelin daalimkana ma saacido kay dabadabeeyana waan daafadeeyaa qabri baan ku duugaa waxaan ku soo burdab TV su'aal baan ku weydiinayaa waliba adiga muhiim ku ah saasha xaraasa qaranku wuxuu ku guuleystay inuu qarameeyo ciidamada madaniga oo meesha ka baxaan SSP bal xasuus nooceeya maadaama ciidamada SSP ka ahayd maadaama la gaaray guntiga gabagabadii baabiinta ciidamadaas xasuus nooceed ka isticmaalay aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay ciidamada SSP iyagoo 2 sano jiray inaan hal maalin gaari laga qabsan ragna laga qabsan xasuus wallahi waxa iga hadina libis soo hooyeen oo 2 sano halka joogeen maxay ahayd ay waxaan ku riday baabuurtoodii iyaguba ay naftooda difaacayeen oo 2 sano iyagu wax soo qabsada mooyee aan hal maalin laga guuleysan imikana way soo dhaweynaa qarankii ba ku biiraan waxay noqonayaan rag maamul leh oo in kasta markii hore maamul iyo meesha kala dambeey jirin rag maamul la bay noqonayaan way soo dhaweynaa qaranka shacabka marka laga hadlayo xasuustoodu sidii asalaam kale ma la xusi doonaa waa la xusi doonaa waliba anagu gaar ahaan waan sii xusi doonaa xasuus aad iyo aad u weyn baan ka haysanaa maxamed burdab TV ku soo dhaweynaya su'aasha Faransa waxay qaranku gaaray guntiga gabagabadii inuu ku guuleysto ciidamada madaniga qarameyntoodii bal ciidamada madaniga maanta haday meesha ka baxeen xasuus nooceeya qad ka haystaa ama aad ku xasuusan doontaa wallahi ciidamada madaniga SSP guud ahaan bad horta way shaqeeyeen looga baahnaa deegaanadooda si dadkooda iyo deegaankooda u difaacaan imikana ciidanku bay ku beereen meel fog ma aadin dawladdeena inaan ku kalsoonaano dawladda aynu kalsooni ku qabno buuxda ayaan u baahanahay
si dee ma ogtahay dawladdu inoo difaacdo wad ogtahay oo dee dawladdu dagaaladii sokeeyay dee si wacan bay qaranka u difaacday marka waxaan jecelahay in dadku inay ku kalsoonaadaan dawladooda isgarab taagna u muujiyaan marka SSB ma fogaa SSB sidii TV xamdi halgan waan dhawahay waa su'aasha la weydiinaya wana hadba ma santay wala su'aasha waxa ku oranaysaa qaranku ku guuleystay inuu gunti iyo gabagabadii ciidamada qarameyntooda gaadho oo madanigu meesha ka saaray guud ahaanba maadaama madanigu maalmo adag ay soo mareen bal xasuus nuuciyay baad ka haysan doontaa adigu ciidamada madaniga aad iyo aad ciidamada u dhabar adag ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland lana shaqeynaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xilli loo baahnana way yimaadeen marka aad iyo aad bay ciidamadaas u tacab ugu galeen dalka iminkana in la qarameeyo xaq bay u yeesheen oo ay ka maqdaan ciidamada qaranka waliba ay ku mudan yihiin oo goobahoodii waliba lagu tababarayo dawladuna aad bay wax uga qabatay marka sidaa darteed waxaan leenahay dawladuna aad iyo aad bay u mahadsantahay ciidamaduna waa ciidamo iminka ay ku yimaadaan ciidamadaas sidii ciidamadii islaam oo kale xasuuso gaar ah yeelan doonaan xasuuso gaar ah bay yeelan doonaan iminka wada calaanka waxay ku jiraan media meel kasta way ku jiraan waxaan ku wuri kun sano dambe wala xasuusanaya ciidamada waxaan ma in loo baahan doono mar dawladda loo ordo ciidamada dib ha loo sameeyo haddana xilliyaabo waqtiyadayga marka yimaado waqtiyada aan laga maarmayn marka aad bay mahadsanyihiin waxaan ku weydiinaya su'aal ka oranaysaa waxay dawladda Soomaaliland gaadhay oo qaranku ku guuleystay inuu qarameeyo ciidamadii madaniga ah waxaanu taagay guntiga gabagabadii ciidamada bal xasuus nooceed maalmihii adkaayay ciidamada madaniga aad ka haystaa markii hore dadku waxay lahaayeen yaan la qarameyn laakiin iminka inay muhiim noqotay in la qarameeyo oo ciidanku markii hore dee wuxuu kala dambaynayo waxaan jirin ma garanaysaa wuxuu ahaa dad shicib oo daan cid maamulin oo iska ma garanaysaa aan kala dambaynayo maamul lahayn iminka laakiin maamul bay yeelanayaan oo waa dee ciidan dawladii oo meel lagu ogyahay oo qaramaysan de meel baa lagu ogyahay iminka dee ciidanka way waxaa jira haddii meeshii ka baxday SSB ma la ilaawi doonaa SSB waxaa loo ilaawaya waa xusuus bay leedahay waa tii dee ma garanaysaa maalmihii aad ka dagaalamaysa ciidanka ma garanaysaa markay soo duulaan waa kuwa caabiyay dee halkooda ku celinayay marka waa xusuus bay lahaan sida asana ma kale xusuus yeelanayaan weligood la ilaawi waa la xusuus doonaa dabtiifin ku soo dhawniyay su'aasha waxa ku oranaysaa qaranku wuxuu gaaray guntiga gabagabadii qarameynta ciidamada madaniga iyo meesha laga saaro oo la qarameeyo maadaama ciidamada madaniga ay meesha ka baxeen xasuus nooceed ka sinta SSB maadaama ku abuurantay maalmihii adkaa walaal taan waxaan ka oranayaa dawladdu way ku mahadsantahay waajibkeedii bay gudatay Soomaaliland horta way tagtaa cid soo celisana waa loo baahnaa cid kasta ahaataba mar haddii ay ku guulaysatay dawladdu oo ay dhamaysay hawsheedii oo waajibkeedii qabsatay waxaanu leenahay madaxweynaha aad iyo aad baad u mahadsantahay guuliga gobonnimaad gaadhay waxaanu leenahay hawsha aad gaadhay ku sii wadalkiina maanta madaxweyne adiga gacanta ku haya waxaanu kugu mahad celinaynaa dalkii iyo qarankii iyo dunidiiba inaad adigu difaacdo maxay tahay nimankaa uu maxay tahay qarameeyena waxaan leeyahay dee waxa weeye dawladdiiba ka mid noqdaan waxa weeye awalba dalkay difaacayeen dee maadaama dawladda ka mid noqdaan sidii ciidamadii islaam oo kale maadaama baahiyo ku yimaadeen iyaga laftigooda xasuus sidii kale ma loo xusi doonaa sidii hore iyaga sidii islaam loo xusi doonaa sidii aslam walaal horta aslam gaari maayaan aslam wax gaaraya walaal horta ma jiraan aslam waad garanaysaa waxa weeye raggii dee guclayn jiray bay ahaayeen injirtu soo gashay kawdhade waxa weeye laakiin waa rag dalkooda iyo dadkooda iyaguba difaacayay bay ahaayeen qarankooda iyo dadkooda iyo shicibkooda iyo haweenkooda intaba rag difaacaya bay ahaayeen waa la midu waxba kama yaraa laakiin dee waa la midu waa loo hinaya iyagan xasuusta waana ku mahadsan yihiin ashkuru laa ashkuru waxaan ku diinay su'aal oranaysa qaranku ku guuleystay inuu qarameeyo ciidamadii madaniga oo ay meesha ka baxaan SSB haddii SSB ay qaran noqotay xasuus nooceed ka haysta gaar ahaan SSB ma kala joogo taawar oo SSB soo qarmay marka hore oo difaaca dalkeeda ma garanaysaa imika haddii qaranka noqotay dee waa qarankii dawladdu unba xoog la saaray wax dhiba kuma jiraan wax dhiba ku jiraan qaranka ma diidani xasuus nooceed kugu leeyahay aduu waqtigii ciidamada samaysay ciidankaas sharaf iyo karaab inaga muday in loo mahad celiyaan waa wacay Soomaa marka loo mahad celin ciidanka la taageersay ya waxay doontaa taariikhda insha Allah billaah karim iyaga khayr ma rajeenayo waxa leenahay guuleystaan mar kasta baan leenahay mar kasta ciidankeena qaran kara waan dhiirigelin haddii soo yaacin haddii aan soo yaacinba waa kacaan u soo kacayn aad baan iyagana salaamay dhawaay walaalo magaca Sultan Salaad Sultan aad baan ku soo dhaweynaa burda TV ku soo dhaweynaa walaalo waxa la gaaray oo qaranku gaaray guntiga gabagabadii qarameynta ciidamada madaniga ciidamada madaniga maadaama meeshii laga saaray oo SSB meesha ka baxday xasuus nooceed ka haysta maalmihii adkaa والله بالله حسوسات يا وفر بدن SSB SSB اللي لا يمايو قرن كان مهمة وين بكل حي
meel weynna boos weynna way haysatay insha allah maantana haddii SSB ka baxday qaranka guul weyn baan u rajaynaynaa inuu qaranku waxa weeyaan dhismo sii socdo horumar weyn wanaagsan sameeyo halkii SSB-na waxa weeyaan waa la bixinayaa qasab SSB ma dhamaane xaggan iyo qaranka ku beertaa ninkii islaha uu dhamaaday SSB ma dhamaan xaggan kale joogtaa magacuun baa meesha ka baxay haddii loo baahdana magaciisu soo noqonaya haddii khaldan